Inchworm waa mid ka mid ah cutubyada ugu muhiimsan ee buugga The Mental Game of Trading. Waa fikrad maskaxeed oo aad iyo aad u xoog badan oona kaa caawinaysa koritaanka xirfadaada iyo inaad ka takhalustid qaladaadkaaga joogtada ah ee tradingka. Haddaba cayaankani waa maxay? Waa cayaan socodkiisu gaabis yahay oo hore socodkiisu yahay midka hore qaybta dambe ayuu jiidayaa, kadibna qaybtii hore ayaa sii riixmaysa, sidaas ayuuna marba qayb hore ugu socda. Gerard wuxuu tusaalahan u adeegsanayaa si uu u sharxo si taxadar leh ama traderka si tartiib ah inuu u kabcayo xirfadiisa. Tradingkaagu waxa uu leeyahay heer sare, best performance aad leedahay, celcelis ahaan average-kaagu yahay mid heer sare ah. Sidoo kale tana waxaad noqon kartaa mid worst performance oo ah celceliskaagii oo heer sare uusan ahayn oo heer xun u yahay. Sida marka cayaankani uu ku socdo, waxaad horey u riixaysaa qaybtaadii ugu liidata si ay u noqoto celceliskaaga, kadibna oo aad gaarto heer sare. Mar walba waxaad ogaataa buuggani la yiraahdo The Mental Game of Trading waa buug aad iyo aad u muhiim ah. Asxaabtana kol hore ayaan la soo wadaagnay. Marka cayaankani tusaale ahaan markaan fiirino, waxaa tusaale ahaan uu bixinayaa markii loo eego tradingkaaga ama trade-ka aad qaadanaysid. Maalmahaaga fiican waxaad samaysaa profit oo waxaad sugtaa fursad oo waxaad raacdaa nidaamkaaga. Maalmahaaga xun waxaad samaysaa overtrade, revenge trade ama stop loss-kii trade-ka kugu jira ayaad ka saartaa, trade-yadana waa ku degdeg. Ujeedka marka cayaankan waa inaad gaabis u hagaajiso maalmahaaga oo haddii aad aragtid trade inaad ku qasaaraysid, aadan degdegin oo aadan ku qalqalin oo aad waxba kale aadan bedelin, kadibna aad sugtid maalmaha quruxda badan ee soo socda. Marka maxaa laga rabaa? Ogow marka heerkaaga kala duwan. Sidee u dhaqantaa markii aad trading fiican sameynayso? Sidee u dhaqantaa markii aad trade qaldan qaadanayso? La soco marka isbedelkaaga. Oo ma isbedeshaa haddii maalintii qalad uu ka dhaco oo waxyaalo aad gudashaa iyo overtrade miyaad samaysaa? Haddii trade-ka faa'iido kugu dhamaadan, emotion-kaaga ma isbedelayo qof aad iyo aad u weyn oo guriga ku soo duuma ama buurma ku soo duntay farxad darteeda miyaa noqotaa? Isweydii isbedelkaaga waa sidee markaad qaladaad gashid iyo markaad profit heshid. Marka waxaad ku bixsaa wadahaaga wanaagsan, yareena kuwa liita oo si tartiib ah u jar. Ciwaankani ama cutubkani maxaa kaaga faa'iida? Waxaad ogaanaysaa in horumarku uusan ahayn guul degdeg, balse uu yahay socod tartiib ah oo si joogto ah loo sameeyo. Waxaad fahmi doontaa sababta ay muhiim u tahay in loo kordhiyo ama loo joogteeyo halkii la sugi lahaa hal mar inaad guul samaysid. Culummadu waxay dhihi jireen cashar iyo cadiinba ayar baa loo qaataa. Sidaa darteed mar walba waxaad ogaataa in aadan degdeg waxaa jirto laba or ah oo inta badan markaad wax baranaysa ama markaad ku jirto heer xirfadeed inaad qabatid oo qofku u dar waa lababa. Waxaa la yiraahdaa badasho badan iyo baaqasho badan. Badasho badan waxay tahay in maalintii oo idil aad tiraahdid intaanoo lecture ayaan qaadanayaa, intaana muuqaal aan daawanayaa, intaan hal maalin aad tirahdid intaasoo cashar ayaan ka baxay. Waad isku badisay oo waqtigaagii loogu talagalay ma aadan manage garayn. Sidaa darteed maskaxduna in ku filan ayay qaadaa. Haddii aad cadaadis ka badisidna xiisa keliya ayay ku noqon doonaan. sidaas ayayna ku joojinaysaa. Bacda kale waxay ahayd baaqasho badan. Hadduu gagambiskaaguna badan yahay oo maanta aad qabatid oo biri haddii la gaarana aad goysid, maalinta xigta aad timaadid, maalinta xigta aad goysid, maalinta xigta aad timaadid, runtii taana waa baaqashada badan hadday timaado ultimo sidaas ayaad ku ilaalinaysaa waxaad qabanaysaa. Sidaa awgeed labadaas baan iska ilaalin. Sidoo kalena wax walbana tartiib ayaa lagu gaaraa. Cayaankan halkan ka muuqda buugani qaybtani waa qayb aad iyo aad u muhiim ah. Qof walbo degdeg ku jira qaybtani ciwaankan soo gaaro waxaan dareemayaa inuu wax walbo fahmi karo. aad baad mahadsantahay.